galmada aroortii iyo caafimaadka ninka iyo naagta. jawaabta: galmada xalaasha ah ee guud ahaan waxay leedahay caafimaad sida kale firfircooni, laakiin galmada subaxii ama aroortii la sameeyo waxay leedahay faa'iidooyin aada u badan. waxaa ka mid ah faa'iidooyinka: qofka oo dareemo deganaan xagga qalbiga iyo jirka marka ay subaxdii sameeyaan galmo. waxay dareemaan qofka oo dareemayo deganaan xoog qalbi iyo jirka markii ay subaxdii sameeyaan galmada wuxuu dareemayaa raaxo nafis ah. taasina waxay sabab u ah hormoonka jirka soo daayo oo ka mid yahay hormoonka farxadda sida fiican inuu u shaqeeyo. waxaa kaloo ka mid ah qofka oo wejigiisa soo ifo, waayo dhiigga si fiican ayuu u shaqaynayaa aroortii, taasi oo keenayso inuu dhiigga meelo badan uu ku faa'iido. maqribkiina wuxuu noqonayaa mid dhaldhalaalaya ilaa timaha ayay gaaraysaa. arrintaana waxaa la sheegay ninka iyo naagta marka ay biyo baxayaan jirkooda oo dhan ayaa wada dareemo wareega dhiigga aasoo kulul oo kacsan. sida kale raaxada galmada subaxii waxay siinaysaa jirka si difaac adag. dadka toddobaadkii galmo sameeyo 3 jeer oo kale waxaa la sheegay in ay ka fiican yihiin dadka aan sida samaynin. jirkooda wuxuu helayaa difaac adag oo ka hortagayo jiritaanka qaar. sidoo kale galmada subaxii waxay u roon tahay caafimaadka wadnaha, waxayna daaweysaa madaxa xanuunka, waayo galmada waxay yaraysaa cadaadiska dhiigga xoogga leh, taasi oo sabab u ah jiritaanka wadnaha. sidoo kale dumarka aada ugu sheegto madaxa xanuunka waxaa la sheegay marka ay galmada subaxii la sameyn inay ka roonaanayaan madaxa xanuunka, siiba kan baarka madaxa galo. laakiin galmada aroortii waxa ay u baahan tahay in si fiican la isugu diyaariyo. waxaa ugu muhiimsan in uu qofku si fiican usoo nadiifiyo, siiba afka, maxaa yeelay afka markii uu aroortii ka soo kaco afkiisa wuu uraa. marka waxaa habboon asagoo afkiisa uraya inuu naagtiisa galmo la samaynin, taasi oo keeni karta inuu meesha ka dhasho nacayb lama filaan ah. waxaa habboon inuu qofku soo qubaysto oona soo nadiifiyo afkiisa. sidoo kale waxaa la rabaa xaaska inaysan ku jirin hurdo, waa in ay si fiican usoo toostaa. waxaa kaloo habboon in ninka diyo istaanka, taasi oo u roon naagta, maxaa yeelay marka u badan yahay istaanka jirkan si dareen uu ku kaco waxaa ka dhalanayo halkaasi galmada ugu fiican oo la rabay. kacsiga badanna ama haweenka qaboobaan. astaamaha lagu garto xaaska inay kacsan tahay waxaa ka mid ah hadalkeeda iyo dhaqdhaqaaqeeda, iyo sida naagta markii ay ninkeeda toos u weydiisato galmo waxay ka baqaysaa in uu u maleeyo inay tahay gabar aaminsan yihiin. xaaska marka ay galmo weydiiso ninkeeda inay u dhaqantay sida naagta dhilada oo kale ayay u aaminsan yihiin. xaaska marka ay galmo weydiiso ninkeeda in ay u dhaqantay sida naagta dhilada oo kale ayay dhaqanto. haweenka dhilooyinka ayaan ka xishoonin galmada markay waxaa laga rabaa ninka inuu siiyo xaaska kalsooni buuxdo sida aysan uga cabsanin isagoo dareenka xaaska waa muhiim
marka laga reebo inuu ninka helo raaxo iyo jacayl isla socdo. Galmada iyo kacsiga xiriir weyn ayaa ka dhaxeeyo ninka xaaskiisa. Hadduu aado iyadoon qoq haynin, wuxuu kala kulmaa galmo aan raaxo lahayn, bal waxba laga yaabaa inay xanuun dareento. Naagta marka ay ka raaxaysan karto xiriirka galmada waa marka ay diyaar u tahay. Naagta diyaar uma noqon karto galmada iyadoo aan helin astaan ku filan. Marka guud ahaan galmada aroortii la sameeyo waa galmo aad u fiican caafimaadka ragga iyo dumarka waxna ka bedelayo. Marka waxaan leeyahay ragow, gabdhihiina u dadaala, dumarona isdiyaariya aroortii. Arrintaas qofkan hore u jitaabin ha jitaabiyo.